Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhowaada kanaalka xogta geeska oo aad ka heli kartaan warar iyo warbixin xaqiiqada ku saleysan kuwaasi oo aanu ka soo jeedino kolba wixii cusub. Haddaba si aad ula socoto barnaamijyadaasi, subscribe saaro gambaleelka yarkaana furo si aad ula socoto dhammaanba fiidiyoyada aanu halkani soo dhigno. Mahadsanid daawade, kuna soo dhowow barnaamijka maanta. Barnaamijka maantuna wuxuu ku saabsan yahay Soomaalida dhexdeeda. Soomaalidu waa dad muslima kuwaasi oo aaminsan diinta Islaamka, haddana aaminsan Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Haddana Soomaalidu waxay soo martay dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid yihiin qax iyo dil iyo cuqdada ay isu qabaan dhexdooda. Haddaba Soomaalidu waa dad muslima. Soomaalidu iyagoo og inay walaala yihiin, cid kastana iskaga dhow yihiin, haddana iyaga dhexdoodu waa isku cadow oo waxay kala samaysteen taalooyin iyo kuwo cuqdada ku saleysan, kuwaasoo ay ka taageen reerba meelu ka taagtay. Haddaba taalooyinkan oo haddaba loogu talagalay in lagu xasuusto dad ay laayeen dad kale oo Soomaaliya, kuwaasi oo dhintay beri hore islamarkaasina aan noolayn, ayaa laga taagay deegaano ka tirsan geyga Soomaalida. Waana dhibaato weyn oo haysata midowga Soomaalida iyo inay wax wada qabsadaan. Haddaba in dalal la kala noqdaa ma saacidayso, mana xumeynayso taalooyinka xumaanta ee la dhisayo. Taalada ayaa ah mid lagu xusayo dad hore oo dhintay islamarkaasna la odhanayo waxay haayeen xaqu dirir, waxaa ku dhacay xasuuq, waxay haayeen shacab, waxaa ku dhacay xasuuq. Haddaba dadka qaarkood ayaa mujaahidiin ah, dadka qaarkoodna waa shacab la laayay kuwaasi oo la xasuuqay. Taalooyinkan ayaa waxaa ka mid ah taalada Hargeysa, taalada Muqdisho, taalada Buuhoodle ee lagu xasuusto xasuuq ay sheegeen inuu kalshaale ka dhacay, kaasi oo lagu laayay dad shacab ah. Cidda laysayna ay tahay jabhaddii Asanam ee Somaliland ka talin jirtay xilligaasi. Iyagoo sidaasi oo dhan isu nacab, haddana Soomaalida kama madhna dareenkooda wadaniyadeed, oo ay leeyihiin dareen iyo shucuur wadaniyadeed, haddana kuma dhaqmaan oo waxay iska dhagamariyaan dastuurka iyo arrimaha sharciga u yaalla dalka. Madaxda sanad kasta la doortaana waxay iska ilduufaan oo iska dhagamariyaan dhaarta iyo wacadka ay mareen oo ah inay dalka iyo dadka si fiican ugu shaqayn doonaan, diintana u adeegi doonaan. Haddana Soomaalidu iyadoo saasi oo dhan u dhaarata islamarkaasina muslimiin ah, haddana waxaad mooddaa inaysan ku dhaqmaynin dhaarta ay ku dhaarteen madaxda dalku. Iyadoo ay saasi oo dhan u adag tahay xilliga iyo wakhtiga lagu jira, haddana Soomaalida waxaa si aad u ragaadiyey colaado sokeeye oo ay ka mid yihiin kuwo argagixiso, kuwaasi oo la degay islamarkaasina geeyey halkii ugu hooseysay. Duniduna waxay ogaatay in Soomaaliya ay baabaday oo aanay lahayn soo kabasho dambe. Hase yeeshee Soomaalidu waxay gaadheen hadda ka hor heer wanaagsan oo ay kaga fiicnaayeen dhammaanba Afrika. Haddana Soomaalida laftarkooga ayaaba isla degay oo loo adeegsaday siyaasad hoose islamarkaasina lagu daadejiyey. Soomaalidu mar waxay ahayd dowladda Afrika ugu quwadda weyn, hase yeeshee waxay noqdeen kala furfur iyo argagixiso oo waxay ka soo horjeesteen dalkoodii iyo dadkoodii. Haddana waxay ku dambeeyeen halkii ugu xumayd oo sharaf darri halkii ugu hooseysaya. Haddana Soomaalidu waxay rajo ka leedahay sanadkan qulatay ee 2021 inay sidoodii ku soo noqdaan, islamarkaasina ay dib u soo celiyaan sharaftii iyo mudnaantii ay ku lahaayeen dalalka dunida iyo Afrikaba. Haddana Soomaalida aad ayaa loo cunsuriyeeyaa, islamarkaasina waxaa laga duubaa fiidiyoyo aanay jeclaysan, kuwaasi oo lagu faafiyo majaladaha adduunka ugu waaweyn si loo dilo sharafta Soomaalida. Waxaa la matalaa filimaan iyo kartoomo aad u xunxun, kuwaasi oo Soomaalida lagu aflagaadeynayo. Haddaba Soomaalidu waa ay heesaan, way isku soo dhoweeyaan, waxay ka heesaan horumarkooda,
haddana kama dhabeeyaan. Soomaalidu waa dad furfuran, islamarkaasina dad la qabsi leh, ganacsigana ku fiican. Hase yeeshee waxaa ragaadiyey dagaallo ay ka dambeeyaan dad shisheeye, kuwaas oo doonaya inaysan Soomaalidu si fiican u korin, maadaama ay dhibaato ku tahay inay Soomaalidu korto. Bal ila daawo fiidiyowgan yara dambe oo aan ku weydiinayo isla Soomaalida su'aalahan weydiinayo, islamarkaasina aan anigu maskaxdayda ka keenay oo ay ku jawaabayaan heeso ay iyagu qaadeen oo aan soo jarjaray. Bal dib u daawo fiidiyowgaasi intaanad bixin ka hor. Mogadishu, Soomaaliya. Aan idin weydiiye, Soomaali ayaa tihiin, xageed ka soo jeedaan, maxaad ku abtirsataan? Soomaalinimadii sifaheeda garka, haddana su'aasheen jawaabteedu waa sidan. Soomaali baan ahay, Muslim saafi aan ahay, isa saacidaadiyey wax laysa siiyana sumadayda weeyaan. Waad ka mahadsantihiin su'aashiina aan idin weydiiyey aad iiga jawaabteen, balse waxaan idin weydiin doonaa su'aal labaad, waxayna noqon doontaa su'aashaasi sidan soo socotaa. Soomaaliyey, su'aashan idin weydiinaya waxay noqon doontaa, maxaad rajaynaysaan wakhtiyo badan oo soo socda, se maxaad lahaan jirteen oo aad adduunyada ugu faani jirteen iyo Afrikaba? Haddaba nooga jawaab su'aasha. daruuraha sixirka iyo intan saxakani dul iman samaaluhu wuxuu ahaa nafraamada ugu samee sabab ku faraaruqiyo intaasoo soo cufan safiicudi u lahaa cadaawu kagaasasaan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin Soomaaliye, balse waxaanu idinka codsanaynaa inaad ka dhabaysaan hankiina iyo himiladiina idinku duugan, taasi oo idaan u shaqaynin, islamarkaasina aad afka ka sheegaysaan, haddana aad leedihiin waxbaanu gaadhayn. War waxaanu doonaynaa inaad ka dhabaysaan halganka iyo horyaalnimada. waa salaamantihiin. Subscribe-ka noogu qabta, like-tana saara barnaamijka.